dowladda Turkiga ayaa markii ugu horeysay shaacisay dhaqaalaha rasmiga ah ee ay bil walba siiso wadanka Soomaaliya. Safiirka dowladda Turkiga oo fadhiya Soomaaliya oo waraysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ayaa sheegay in xukuumadda Ankara bil walba ay siiso dowladda Soomaaliya lacag gaaraysa $2 milyan oo kaash ah si ay mushaharaadka ciidanka iyo arrimaha xukuumadda ugu isticmaasho. safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya Ambassador Oglan Baker ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Turkiga ay taageero weyn siiso dowladda Soomaaliya. waxa uu isagoo hadalkiisa sii wata sheegay in dowladda Turkiga aysan saldhig ciidan ka furanin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Ambassador Oglan ayaa waxa uu sheegay in wararka sheegaya inay dowladda Turkiga ka furatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya saldhig ciidan yihiin kuwa waxba kama jiraan isla markaana aysan saldhig dowladda Turkiga ku lahayn magaalada Muqdisho. waxa uu sheegay in waxa kaliya ee ay Muqdisho u joogaan yahay inay tababar siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. safiirka ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay shaqooyin badan u qabato dadka Soomaaliyeed. waxa uu ku faanay in dowladda Turkiga safaaradda ugu ballaaran caalamka ka furatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa kamid ah dowladaha sida aadka u taageera wadanka Soomaaliya oo aan dowlad dhexe lahayn in ka badan 25